Soomaaliya waxaa ka jira xaalad bini aadanimo oo baahan marka had maadaama idinka xiriyaha qaxootiga aad tagtaan bal nooga sheekay qaab noocee ah xaalad noocee oo ka jirto والله كل قفكي حرياتي دريم كحالة كجرت runtii xaalad badan ka jiro duruufo badan baahi badan ka jiro waxa arkaysaa يعني hooyo ku dhaheeso la biram sax bir cunto ma cunin يعني waa qada dibka waxa ku shita ma laha waxa la yaab aabiin oo dhintay maamada reerka u shaqeynaa daayada xanuusta qofka loo ka caamale ilmiina mujiqiyiin oo dadka la degan ayagana ay ka rooneen oo yani ku dhaheeso saddex maalin cunto ma cun waa qaajeysana runtii calool xumo sayda taal meesha يعني دريال زايد وباهيين هل بري يعني بالإلاب بلا واحد وجارسين مكفل لنا باهي مكافيسو حالة ضعف ماذا كجرو معلولة كجرتو إلمها قار نفق دراه يسو وينك معلول زايد لكل من باهي كجرتو ولا واحد لسه كوبي كرا هل فري لو فري معها باهي وجرتها زايدة مركا وحاس عمل مركا لا كولنتان maxaa u qabataan idinka oo karankiina aniga inta karankeena kiisaska xalli karna sida caafimaad madaan gabdha caafimaad nahni bukaanada daryeelka caafimaad u baahan istaalku u baahan waa geena waxa jira bukaano qaliimo u baahan qaar burooyin ku aalo qaar oo sakaro qabo oo dhaawacdo gaaro nabarkii inta daymi wax u baayaan nabarka si fafash oo marka qaar gaarto heer qofkaas xibintaas u baayo yani daryeel aan darteed u baayo istaalada ku xirnaa waalidaabiya kubi aanay wax ka qabi karnay waxa leenahay beej oo aanay aan ku midaysanahay golaha xirfadlaasha caafimaadka dowladda Soomaaliya beej ku baahinaa lambarkiisa qof xogtiisa ku qoreena xaalad heesto warbixin qofka xaleenahay aniga yani bulshada ku baahinayna wixii tabarteen inta sayayd bulshada soo bandhignaa bulshada cid wax qaban karto u qabataa markaas isbitaalada maxay u qabtaan marka u keentaan idinka ku soo xirtaan isbitaalada aniga u keeno oo sida tusaale isbitaal shaafi oo kaleete tor shaafici qaralaasiyo bukaan aniga geeno ka socdo golaha xirfadlaasha caafimaadka si bilaash ah u ku daawiya maadaama ay dadkan dad tawaaleysan anigana ay gabdho isxil qaamay يعني وحوجودي وقتي وذقلي أبوكان كسوقرني أكين أصلا سبلا شو نقول دابيا واحد على كم قاطو قليل واحد بوبان اسمية داوين كل وصية أنا بوكان كاس إلى استالك بحاول بحنا سنة وحالي زي سال سعنا فلو أب وصل علنا استالك أنت توريت حالة بني آدم أما نفقة رد عروض الشنطة السنة كوسيس آدي وليدة Soomaaliya إن محاك كل أنتان مركات تكتان أو أركتين أدينك مادام أدينك تكتين تتكا أو تجا أو تتوسع goobta u tagay soo warami kar ilmaha shanta san ka yar aad u nugul yihiin nafaqadaradana waxa waaye waa wax u badan ee caruur Soomaali u dhintaan ayaga marka yani waxa ku xirnaa ayaga MCJ meelaas cunuga yani waxa xaaladiisa roon tahay oo cunti wax qaad karo waxa sameeyay meel MCJ-da ku xirnaa si ay hooyadan wax u hesho nuunahan oo yani xaaladiisa u soo fiicnaato buskad iyo caani wax u helo kuwa istaal u baahan istaalada ku xirnaa marka heer intee leeg ku qiyaasi kartaa xaaladda bini aadanimo ee haatan Soomaaliya ka jirto والله هذا أنا تركب وصح أصلاً مجرد لكن باهي ذكرت بدنت هاي برسنتج بدنا كجرت باهي أو الخاص كرين 8% يعني كرا باهي كجرتو أوكي ما دام قلها حرفياش عافماد قبلها Soomaaliyeed أيهين قبله وحساس قبله أيهين خاصة قبلها قال نوع إذن كجادن أو محاس أو قبتان أوكي قبلها هرتا إن لا وكل سارة تيمك أو كوميديسن قلها حرفياش عافمادك أي سقاس وحاوس مينا تبرع لحظين إيه ما دام علينا هاي وحاجرته تيم ديبارتمنت سوحل له هنيقدر نسميسيها تسأل عن ميديسين كهاي جروب ميديسين كان عم بضحوه هبين والبا ويعني أسبوع هل هبين وحاليا هاي وأنا ميتين جوجل ميتين حقوقان حيصده لا هبين كورو حالا جروب ولا حسيس كل عاو ساعدة سولية هاي طيب نوع عسى على هذا صح حاضره نين كالودي أو صوت حاضر يعني وكيف يدسناه هبين كحية لا كأسكره ويك حية أفرت ويك بيش ما ده أفر أسبوع كونته أفر عوان مهمة بحضو جروب ربنا كيف يدسته dhanka kaleete hablaha kale banaanka jiro waxa jiro jaamacada hadda nagu soo xirmaayo oo xirna la sameeyay sida jaamacada simado kaleete jaamacada jamhuuriyo kale hadda nagu soo biirtay oo yani dhaheen maadaama ay tin gabdhaha arsus wax baran oo bulshada wax soo gudbina anagana waxa rabnaa inaan yani waxaan ka korsano tababar aan qabataan si qaasa ayagana waxa ismana tababaro tusaale hadda maalida jaamacada jamhuuriyo waxa ku qabanay ciibaan mawduuciisa FGM guddoonsiyada qabanaysay way ka faa'iideysay dhamaan jaamacadan kuliyad walba oo dhiganaysa oo dumar ah وكسر فايدتين وكسر قرب قلايان توبروا البجاعة نوع الصعوبة هنا وعافمات قصي قبل البصمان لك فايدتين يسافر صداس يقون كرسيجاس وأحلى حاجة ما هو بلاش. أوكي مكعاوسان إني شقوين هلان أو استعلاض أما برات قارة جيران أو سيوح أوبرتن حتى براتك عنو هلين جانس مرك فرصة داس مكساعدا إني هلان. عادي فرنتي وحاق بنا توبر له هو برهسة ترين
aku bixin jaamacadaha barasa traininkaas wuxuu socdaa 2 bilood gabdhaha badanaa jaamacadaha dhigto oo wali caafimaadka barto waxay ku bartaan theory kaliya waxa leeyahay qof 5 sano medicine soo barnaayo oo wax practical aan leeyahay oo sanadka lixaad internship laga soo geeyay aan ka sii kanalka sida loo xiro waa wax u yaro yani qofka qaban karo marka aniga waxa sameeynaa tababar aan bixinaa barasa training qabana nurse ka qabana midwife ka qabana marka tababarkaas u dhamaado waxa sameeynaa kaalmo hore qaaraha kaalmo hore galaayo 2 3 4 galeeso waxa sameeynaa dhamaan istaalo ku xirnaa qofka diyaar u inuu wax barto oo practical helo dhamaan kaalin bis loo fiiriyaa waxa sameeynaa istaalo ku xireenaa istaalo publica sidoo kale banaadir oo kaleete waa gelinaa waxa leenahay qofkan tababar noo la siiyo aniga naga socda tababar waxa qaato marka qofkaas istaalka la geeyay sidoo asas ku saar ku xirantahay maadaama khibradii aasiinay oo istaalku uu shaqeeyay sidoo asi yani istaalka soo fargal asii ku xirantahay aniga istaalka waagina ku xirnaa sidaas taan waa la soconahay qofka aniga keen si aan shaqeysanayo xaaladiisa waa dhana tawar yani ma sii harno maadaama wax taasala geeno waa la sii soconaa xaaladiisa qaabka wax qabanayo waxa jiraan istaalada marka ku xirtaan qaar ama istaalada baraatikada badan lagu qaato in 3 bilood 4 6 bilood dadka ay u xiran tahay inta badan oo qofkii aan la qaadan badan oo ku cusub jaamacada ka soo bixina oo la keenay caqabadaas ku maareyn kartaa horta waxa caqabad bay jiraan meel kasta caqabadaha bay ka jiraan laakiin kana ka gol ahaan aniga qofka ageena horta wax film ka xirno ma dhahna 6 bilood nool tabar qofka waxa dhahnaa ilaa meel kasta saara meesha noo joogo hadii qof fiican shaqadiisa fiicanta aragtiin qaata kulli istaalku ku qiimeena kaliya yani ma isku qiimeeyo shaqada akhlaaqiyadna la isku qiimeeyaa qof waxa jira shaqadiisa soo baxa balse akhlaaq lehen qof waxa jira akhlaaq fiican leh oo shaqadina ka soo baxay istaal haduu ku arko qof muhiim ah oo istaal ku baahan asaa ku qaadanayba kaliya waxa la isdheeriyahay sabarka iyo dulqaadka ugu dambeyn Doctoressa Safiya maadaama maqarsh oo tiin golaha caafimaadka xirfadaha gabdhaha Soomaaliyeed gabdha kaliina asaasteen haddana atiin urur kaligii iskii u shaqeysto dadkana caawiyo waxna baro inaan balaarisaan oo ilaa iyo heer gobol gaarsiisaan ma qorsheynaysan inta ka balaarisaan macna aad iyo aad waxa golaha wuxuu furiyay gabar walba caafimaad barato waan ku soo biiray hadda waxa ku jiro gabdha Boram joogo gabdha waxa ku jiro Turkiga joogo wadanka aan joogo wali ku jira hadda waa rajeynaa gobol ilaa tuulo meel walba inaan gaarsiino oo gabar walba oo yani Soomaaliyeed oo afka Soomaali ku hadasho barata caafimaadka group u furiyay waan ku soo biiri karaa xeel walba waan si balaarinayna insha Allah waa hagaag daawadayaal halkaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkii Kaab TV podcast oo ay maanta marti inooga ahayd Doctoressa Safiya Maxamed Cabdiraxmaan oo ah xoghayaha golaha caafimaadka xirfadlayaasha gabdhaha Soomaaliyeed sidoo kalena ah gudoomiye ku xigeenka golaha xirfadlayaasha caafimaad ee gabdhaha Soomaaliyeed intaana barnaamijka xiga ku kulmeynay isbuuc soo socda waa Amiiro iyo Doctoressa Safiya oo idin kaga tagayso sida iyo nabadgelyo wararka warbixinada waraysiada iyo falanqaynta Kaab Somali TV waxaad kala socon kartaa baraheena bulshada Facebook Twitter Instagram TikTok YouTube ama ku soo biir barteena Telegram ee Kaab Somali TV haddii aad hayso talo ama tusaale ama aad doonayso inaad nala wadaagto aragtidaada waxaad inoogu soo diri kartaa WhatsApp lambarka shaashada kaaga muuqda ama emailka info@kaabtv.com sidoo kale si fudud u booqo kadibna rukumo website-keena www.kaabtv.com si aad uga socoto warbixinada Soomaali iyo English labaduba Kaab TV waa kaabaha bulshadeena